kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiin baa khiyaarta hawada nagala socotay halkani waa Ilaysa TV oo ala barnaamijyo kala duwan aan idin ka soo gudbino caawaysinnimadan caawa barnaamijyada Ilaysa TV gabi ahaan baa warka dabadii waxa ay noqon doonaan shir maalinnimadii shalay ahayd ay jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen iyo ku qabatay magaalada Jigjiga gaar ahaan hoolka caanka ah ee sayidka marka hore qodobada warka caawaysinimada Ilaysa TV mid iyo labo aan idin dulmaro wararka naga soo gaadhaya degmada Ceelkarhi ee gobolka Afdheer ayaa waxa ay sheegayaan in shil baabuur oo ka dhacay duleedka degmadaasi ay ku dhinteen inta la hubo 5 qof oo kamid ah rakaabkii gaarigaasi saaraa gaarigani oo ka yimid degmada Raaso ee isla gobolka Afdheer ayaa waxa sidoo kale ku dhaawacmay 11 kamid ah dadkii rakaabka ah ee gaariga la socday waxaana warkaanu hayna uu sheegayaa in gabi ahaanba dadka dhaawacmay iyo kuwa dhintay ay kamid ahaayeen shaqaalaha dawladda ee degmada Raaso ayna ka kala shaqeynayeen xafiisyada kala ah xafiiska caafimaadka kan dakhliga iyo waliba kan maaliyadda guud ahaan baa dhibaatooyinka dhinaca wadooyinka wadanka ogaadeen ayaa kuwa baaxad leh oo marba marka ka dambaysa sii taraya waxaana sida badan ka dhaca gudaha wadanka ogaadeen iyo wada xumada awgeed shilal galaafta nolosha dad badan oo shacab iyo shaqaale dawladeed isugu jira shaqaalaha dawladda ee u kala goosha degmooyinka kala duwan ee wadanka ogaadeen ayaa waxa ay kamid yihiin kuwa gaadiid la'aantu ay ku kalifto in ay muddo dheer sugaan gaari ay raacaan taasina waxa ay keentaa marka gaarigaasi dhibaato uu la kulmo inuu galaafto nolosha shaqaale badan dhinaca iyo gobolka Fiiq ama degmada Fiiq ee gobolka Erarna waxa ku sugan wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ogaadeen oo galinkii dambe ee maalinnimadii shalay ahayd gaaray magaalada Fiiq ee xarunta gobolka Erareed soo dhaweyn kadib madaxweynaha dawladda deegaanka ayaa waxa uu u hoyday magaalada Fiiq habeenkii xalay ahaa waxaana subaxnimadii saaka ahayd madaxweynuhu oo la kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Fiiq halkaasi oo shacabka magaaladu ay madaxweynaha ku weydiisteen in uu wax ka qabto dhibaatooyinka iyo waliba baahiyaha xoog leh ee ka jira guud ahaanba gobolka Erar gaar ahaan degmada Fiiqeed gobolada Nagob iyo Erar ayaa waxa ay kamid yihiin meelaha dhibaatada ugu badan ee dhinaca horumar la'aanta ah ay ka jirto gaar ahaan dhinaca jidadka iyo sidoo kale hay'adaha dawliga ah oo gabi ahaanba aan ahayn kuwa shaqeynaya waxaana madaxweyne Mustafa Maxamed Umar uu u ballan qaaday shacabka ku dhaqan magaalada Fiiq in xukuumaddiisu ay ka qaban doonto baahiyaha jira kolba inta ay awoodo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ayaa saaka waxa uu booqday xarumaha kala duwan ee dawladda ee ku yaala magaalada Fiiq waxaana sidoo kale uu soo booqday xarunta hoyga agoonta ee degmada Fiiq halkaasi oo ay ka jirto dhibaato dhinaca waxbarashada iyo nolosha ah oo haysata caruurta ku jirta xaruntaasi hoyga agoonta loo yaqaano madaxweyne Mustafa Maxamed Umar ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ay xukuumaddiisu wax ka qaban doonto baahiyaha kala duwan ee dhinaca waxbarashada caafimaadka iyo jidadka iyadoo haatan uu socdo jidka isku xidhaya magaalada Fiiq ee xarunta gobolka Erar iyo sidoo kale degmada Baabili madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ogaadeen iyo mudane Mustafa Maxamed Umar ayaa intii lagu guda jiray shirkii uu la yeeshay dadweynaha ku dhaqan magaalada Fiiq iyo nawaaxigeeda waxa halkaasi ay ku weydiiyeen su'aalo kala duwan waxaana kamid ahaa su'aalihii ay weydiiyeen shacabka ku dhaqan degmada Fiiq isaga oo ka jawaabaya qaar kamid ah su'aalahaasi bal hadaan idinku duwo Cabdi weydiiyay dad uu noqdo arinta masaajidka anagu ما نقولن أنت حكومة هلا تري مالمي يوجد بيسي عداعسي يا تري مساجد بانكر دينا ماشان ولا بدونيا ولا دونيا ولا يدي واحد قرن أو فيسبوك يشوف أولوية الحقيقة به وهنا في عنه حلا كاركون إن حقته أيكون سالسنا تورط أو أي حقيقة أو تاسلا كانوا ما نقول أنا وحنا ما نقول رسالة نمد ويشوا أن رياضي كابينة هاي حبيبي يوسف ماشى وحنا دينا مال مرحفة ومستقبل كائن تعدي نوعا ولا صار قف جود جوريين قف القصدين صار مال عن صار ضد قوادنا يعني كدينا وموزيما ولا تعوض يا لي تيرو هذا هذه وشرو فكرة
جوزينا الله بهاي ماشي دقيقة دمية أو أكاد قالوا مساجدنا وأن سود وين وأن كدورنا وحين نلقوا مرة من كيلنا الديال اللي لكن وقت سويت لما كو وأنا وحلاها أنت الإنسان هاي إن جارهان شعبك ما قاعد هذا شيء بروباغاندو يبينو عن صحة اللي هو أخيري أو أي كنتي إن تركب كيسو ملك وحكم يسألني دمج ويدسي لابا كل كفافن كويت وزير مالها كويت وزير صدق وزير بيري كل كفاف كل ما يستغفر الله واروتا كل كفافن صدق ويكبرنا يعني هذا بيرهنا إنه ويكبرنا يعني إلى ليه ما سقالنا يعني يحدود محل يلو سواشا وأنا لو قالوها يحدود وزير كحيلة بدن بيلاده هذين وزير هيسن وزير كحيلة بدن بيلاده هاي مركا إنع بالانس مركا اللي وحنا كلام معنا وزير كمركا عن قيمين قيوهان لو حينينا كابني أهان ولا غير باين نسي خدمه فكر له نسنري معناها مرة دول الحين حاجة كسوتشينو واحد قالوا ما يا وكم أنا يا بيتري أنسي لكن هو يقول كده بعدنا سينا خلتها وأنا هو قاعد أوصلني وبالحين متقطع حياة في هذا واحد بالانسي لا كلام مرة أساسي بيتري أبنتي ما كنا ولا جهدو قبل كنوب يؤر وحلوتهم تا أسكر وحلوتهم تا ما أورال مونتينز برا أورال كهوش كويا نسيديسه أسكر على يبالغه هلا دخاتير يو جناعسة تمر هاني قايدي وأبوس حسن أو جناعسته هذين حاجة هذا أو جناعسته مركا يرى هذا كسوة هذا كل شيء اللي يقولفيني دعاء الجديد إن تطلع هذه هنا بطل شيئات يعني جناعسته لبدي سنة يقول بيسير الله من يوم قدر أسلسيو مقعد هذا إن شيء أنا تبين مويان كان عسى خير فيقة أما نوابا يودك تشوفته أو حاجة تشوفته هل بيجي هيستا حاجة تشوفته ربنا دخاتير تعال كسب هذا إنت عليه كنت تجوا هالبان تجوا يدور قفوا ما يلعب بتوكي وحكوا صبرتين موي دخاتير تدي حاجة كل ياتي تشوفته أوي وهون حقيقة ويان قبل كان يريديسه يعوديسه وقبضني إن أسكر لقدمه أو أنا فهم نقطه أما هم نقطة دولة هم نقطة ترك أوروبا ديجو داتا أنت يجيين حقيقة وين أنت عين لقى جذور منه وأنا قلت الله أقوى من يجهله وهم بيشيء عشان وضح نايم يجوا قفوا إنه واحد أفتح مو شغال وحكم بطل يا حكم مولي أفلق هذا ما عيمة فلان وين لما ورا وأسكر على وضعك خطر بالي إلا ما عارف هذا يحب بعينه دخاتير يجنعسته يضم على القبائل وبعينه الفاتح اللي جاي هذا مرة واحد قريني مرة واحد قريني كعيب اللي جاي أنا كعيب اللي جاي بعد ما حكومة ما كانت تبتدي أي سجاد يسيقوا الثانيين نستعوتها أنا كعيب اللي جاي أنا لنا هاي وأروح والله يدي ما هي يدي بأسكر قابتين يدي كم بس لا بقول يا كنتم تولا لوجو فارسة كثير بقول يا كنتم تولا لوجو xarunta lagu xanaaneeyo xayawaanka ee loo yaqaan Pale ee ku taala dhulka Oromada wararka ka imaanayna waxa ay sheegayaan in halkaas maanta ay dab qabadsiiyeen kooxo dhalinyaro ah oo abaabulan dabka la qabadsiiyay xaruntaasi lagu xanaaneeyo xayawaanka ayaa waxa ka dhashay khasaare ilaa iyo haatan aan la haynin balse waxa xogtu ay sheegaysaa in halkaas ay ku dhinteen xayawaankii ku jiray qaar kamid ah sidoo kalena ay guriyo ku baaba'een ciidamada kala duwan ee dawladda dalka Itoobiya ayaa iyagu halkaasi gaaray waxaana warku sheegayaa in gacanta lagu dhigay qaar kamid ah dad la aaminsan yahay in iyagu ay ka dambeeyeen dabka la qabadsiiyay goobtaasi lagu xanaaneeyo xayawaanka dhalinyarada Oromada ayaa waxa in dhawaalaba ay wadeen dhaqdhaqaaq ay kaga soo horjeedaan hay'adaha shisheeye iyo sidoo kale xarumaha ay aaminsan yihiin in aysan dantu ugu jirin dadkooda waxaana la aaminsan yahay in gubidda xaruntaasi lagu xanaaneeyo xayawaanka ay qayb ka tahay dhaqdhaqaaqa dhalinyarada Oromadu ay ku doonayaan in dhulkooda ay kaga saaraan gabi ahaanba hay'adaha iyo shirkadaha aan iyagu wadin danta ummadda Oromada warkii caweysnimo ilaysa TV akhyaarta hawada nagala socotay intaasi caawa hayno joogo
markale cawaysan wacan oo wanaagsan idil ahaantiin baa khiyaarta wada nagala socotay hoolka weyn ee sayidka ee bartamaha magaalada Jigjiga waxa maalinnimadii shalay ahayd lagu qabtay shir ballaaran oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen iyo ugu sareysa kaadirka jabhadda howlwadeennada jabhadda iyo sidoo kale xubnaha caadiga ah ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen gaar ahaan xubnaha ka howlgala magaalada Jigjiga iyo nawaaxigeeda shirkaasi ayaa waxa ka qayb galay xogayaha guud ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen sidoo kale waxa iyaguna halkaasi suugaan kala duwan ku soo bandhigay kooxaha fanka ee ku sugan magaalada Jigjiga ee caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida ogaadeen waxaana halkan aan idinku soo gudbinaynaa qayb kamid ah khudbadii xogayaha guud ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maaday uu ka jeediyay shirkaasi taasi oo uu kaga hadlay guud ahaan siyaasadda guud ee Geeska Afrika gaar ahaan tan wadanka ogaadeen isbedelada jira waxyaabihii uu qabsoomay tan iyo intii jabhaddu ay soo gashay gudaha wadanka ogaadeen ee ka bogasho wanaagsan ummadda Soomaaliyeed hamidoodo Soomaaliyeed ay asraacdo axroodo waxaan idinku salaamayaa salaanta diinta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad baan u mahadinayaa dhalinyaradii iyo aqoonadii qiimaha badnaa ee dhiiggeena dhaqaajiyey ee jooxa sida lagu yaqaanay wuxuu ahaa mintidnimada iyo geesinimada halka ka soo jeediyey wax badan oo oran lahaa yarkii dhalinyarada ahaa ee gabayga halka ka akhriyay magaciisa ma aqaano yaa sheegay saad la socotaan halka waxaa isugu yimid xubnihii jooxo xubnaha jooxo maxay yihiin xubinka jooxo maxaa astaan u ah maxaa lagu yaqaanaa jooxo waxaa astaan u ah koow mintidnimo waa saldhigga xubinka jooxo ah waxa uu aaminsan yahay inuu ku mintido waxaa asal u ah baraarug inuu fahamsan yahay danta dadkiisa wadciga uu ku nool yahay waxa ku hareeraysan waxaa astaan u xubinka soo jooxo isku tashi baa astaan u ah cid kale waxba uma daba fadhiyo waa isku tashi wuxuu taagan yahay xubinka jooxo difaaca danta dadkiisa difaaca dantiisa naftiisu u hurayaa dhiiggiisu u daadinayaa maskaxdiisu u shiilayaa waxaa weeyaan dadkiisuna waa kuwama waa dadka Soomaaliyeed ee dhammaan ku nool ogaadenya xubinka jooxo hawshiisu way hufan tahay lagu yaqaanaa inuu u dagaalamo dar ilaahi oo dantiisa ka hormariya danta shacabkiisa waxaa lagu yaqaanaa siduu yarkii yaraa halka ka sheegay inuusan ahayn qabyaaladiiste xubinka jooxo qabyaaladiisu waa hal qabiil baan leenahay qabiilkaana magaciisa magacooda maxaa la yidhahdaa ummadda Soomaaliyeed baa la yidhahdaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay ku dhibaataysan tahay meel walba lagu dulaynayo meel walba lagu xaqirayo jooxa difaaceeda u taagan tahay xubinka jooxaana difaacaya gabar iyo wiilba khataraha xubinka jooxo uu iska ilaalinayo waxaa ugu horeeya horaa midda horeysa yarkii baa sheegay waa qabyaaladda weeye cadowga u weyn ee xubnaheenna iyo dadkeenna khatar gelin kara waa qabyaaladda weeye waxaa kaloo asna khatar gelin kara danaysiga shakhsiga ah weeye markuu danta guud ka cusmariyo qof walba dan buu leeyahay gaara
لكن دنت جود مركز شخصية دنت جود بكهر مريا خطرت كوي ما كان تو دنت شخصية وهكذا كوي ما كان إحوي وهكذا دقن جوهنا فرينيمو وبنان يوم بسال درو marka xubnaha jooxa sharafta halka jooga astaamihi xubinka jooxana waa tan soo sheegay waxyaabaha uu iska ilaalinayna waa nin sheegay umadeenu cidda ay sugayso inay badbaadiso xaqeeda soo dhiciso ujeedada inay adkaarsiiso waa idinka iyo kuwa malaayiinta ay geesaha dalka Soomaaliya ogaadaya ku nool qiimo weyn ba dadkiina ugu fadhidaan waayo si hagar la'aana daraysi la'aana wadaniyada ayaad ugu adeegaysaan idinkoo danihiinii loobaya geesinimo firfircooni iyo idinkoo fahamsan ujeedada jooxa ay leedahay jooxa waxay dalkeeda awoodeedii ugu badneed ugu soo celisay awalhore dalka kama ayn maqnaynaya madaxdeedina u timid nabadna go'aasatayna u qaato waxaa weeyaan inay 10 milyan oo ubax ka abuurto Soomaalida ogaanaya gudaheeda dhammaan shacabka Soomaaliyeed laga bilaabo xadka Djibouti ilaa xadka Kenya inta u dhaxaysa xagga xadka Oromiya iyo Cafarta xadka dawladda Soomaaliyeed inta u dhaxaysa Soomaalida ku nool kulligood inay ka abuurto xoog aan la loodin karin oo xaqa shacabka Soomaaliyeed u taagan oo si nabadgelyo ku raadinaya dhulkooda diintooda dadkooda iyo dalkooda difaacaya إن برنامج كجوحو وبرنامج عط وعن مقتي كجرين وحاويا مركو الرئيسة دادك يجي شرف توضي يدد مضاد أيامي الله قد عي يدين توضي إني حقيقيان سوء عليا دادك يجي ودادك وشرف بضغول أقني وبدردون كوي مال بالغ قد عي دادك شرف توضي أيبن توضي يدد مضاد إني صارنا الله سوء عليا وطلعوا لك وادوي وأنا أستعد هلك حنينكم موجنين وأتتكم موجنيسان جوحو بيننا معها شعب كأنه شرفتي سي من نمديسة ولا نمديسة نسوع لنا وبرنامج كوه الرئيوي من نمد ومد الصوماليات دين تودا قدقان كذا يا شرف تودا وحيك لو جوحو وتاجنتهاي إن شعب كأنه أودي السياسة ذات وحقي سنة وكنت في عنكرة وحرمنا كنت ذكر وسوع لسوء waxay jooxa u taagan tahay oo ka shaqayn doontaa in horumarka dalka iyo dhaqanka iyo diintaba ay ka shaqayso waxay kaloo u taagan tahay oo xubnaha jooxa loo baahan yahay fahamsan yihiin barnaamijkooda horumarinta aqoonta dhalinyarada iyo xirfadahooda sidoo kale waxay u istaagaysaa difaaca khayraadka dalkooda iyo ka faa'iidaysigiisa waxay kaloo jooxa horumarinaysaa daryeelka dadkeena reer guuraaga halgankii jooxa waxaa sal u ahaa dadkii reer guuraaga ah 70% waxaa taageeray waa shacabka xoolo dhaqatada ah ee duurka ku jiray ee marka muxuu ahaa nolosha iyo muxuu ahaa iyo raaxadana lala maro baahida iyo dhibaatada looga tago oo biyo la'aanta oonka haweenka aan isbitaal lahayn oo isku dhimanaya muxuu ahaa caafimaad lahayn horumar loo sameeyay barnaamij cad oo reer guuraageena xaqiisa iyo dhulkiisa lagu ilaalinayo inay jooxa hirgeliso waxay kaloo u taagan tahay jooxa oo hirgelinaysa biidnillaahi kariim caafimaadka iyo daryeelka shacabka iyaga gaar ahaan haweenka dhallaanka iyo muxuu ahaa daaweynta iyo dadyowga curyaamay sidoo kale waxaan daryeel dhab ah nafta horeyaashii ku curyaamay dagaalka aqoontii aabayaashood ku shahiideen shacabkii wax lagu yeeleeyay dagaaladii dhacay nooca rabo waxyaalahaas gacanta yartaa ka timaado in xaqooda iyo muxuu ahaa sidii wax loogu qaban lahaana barnaamijka koowaad ee jooxo salka waa weeye oo hirgelinayso waxay kaloo jooxo ku dadaalaysaa inay muxuu ahaa dalka Soomaaliyeed difaacdo nooc walba difaacaas mid siyaasi ah iyo mid caqli ah iyo mid maaliyad way galaysaa sidoo kale diinta iyo sharafta shacabka ayana waan difaacaynaa waana ilaalinaynaa ugu dambeyn shucuubta dariska nala ah waxaan ugu baaqaynaa
وأقول رغمينا درس وناك علاج بدي رجلنا إنه وناك إنه بتقليه يود حاجات أي دبعتها كحلنا لكن حق الشعب ده كمان تنزلينه بقول طبعاً dalka yaga amnigiisa difaaciisa waan ka qayb galaynaa dawlad deegaanka iyo cidda u xil saaran magacan weyn baan ka siinaynaa si nabadgelyada dalkan lagu ilaalin lahaa oo cadow kasta nooc kasta iyo weji kasta uu leeyahay looga ilaalin lahaa barnaamijka asaga waa barnaamijka jooxo waxaa hirgelinayeen oo xubnaha jooxo weeye waa barnaamij ballaaran marka haddaydan baraarugsanayn haddaydan ogeyn waxa la samaynayo kama soo bixi kartaan xilkaas waa inaad u baraarugtaan wax u barataan seminaaro hogaamadu siiyaan oo u diyaar garowdaan dalkan cid kale u maqan ilaahay moogay ma jirto jooxo xubnaheeda u maqan waxaa weeyaan gacan baan siinaynaa maamulka deegaanka shacabkayga gacan baan siinaynaa waxaa weeyaan dalkayga laga soo bilaabo ilaa suufka mooyaane ilaa dawalle ilaa mayso intaa u dhaxaysa ilaa muxuu ahaa ow barre iyo tog wajaale dhinac walba galbeed iyo bari waxaa weeyaan shacabkayga annaga u taagan waa inaad isu xilqaantaan oo midnimada u diyaar garowdaan inta markaan ka gudbo marka xilkaydiisa xubna joox haddaad tihiin xil fudud ma aha waxaa weeyaan cadowyo badan baan leenahay waan sheegay qabiilka waan sheegnay cadowyo kaloo badan oo qarsoon baan leenahay waa inaan mitidno waa inaan midowno waa inaan feejignaano waa inaan u diyaar garowno waa inaan isku tashanno cid kale nama caawinaysa ku talagala jeebkiina maskaxdiina iyo muruqiina unbaa wax noo ah ilaahay unbaa na taageeraya cid kaloo na taageeraysa mala ku talagala intaasoo ujeedaan leenahay xooggeena ku noqd iyo shacabkayaga intaasaan shacabkayaga maalkiisa muruqiisa iyo aqligiisa ayaa noo ah hubkaan ku dagaalamayno cid kale kama sugayno walaa dowlad Itoobiya kama sugayno walaa dowlad Shisheeye kama sugayno isku tashi baa dhaqankeena وأنا كاينين نقوشها بإذن الله الكريم. إن صار الصحة وأنا ويتو حوي وفد جوحة وكعيات سوا وفد جاسو حو هذي إن قيبية شيء كنا وصلنا ما يستروا إسلام كان الدولة إثيوبيا ما هذا سنة ولا سو كل ما سي ولا سو حاجة هذا إسلام كان دولة عرب وحرتوا سوا تاي يوين كوساركو مركو وفد جاسو سافر كيس يقول بكسر دم هذي وحلا كل ماي قيمة بدل الدولة إثيوبيا كمدا حق مامور حق أمنية يوم حق الله كل ماي إن حزبيات بدل إثيوبيا أفكار وإدار سدين صدق كانوا حلا كل ماي نمان سفارة ذي هتسلوك جوجي وحق الله كل ماي يوانتا هذه أنت ما تحلا جلا هذا واحد تتكيجا يعرفها النبضة جو حسياسة هذا عصف يبرمش هذا سيكون عند عصف قول بأنا لقيت قاري وحاول دميونا كلناي رئيس وزراء إثيوبيا دكتور أبي أحمد وصفي عمل سواف قرناي صدق كله وحان كلناي جالية دني أتسوى وجالية ديار ومن تدا قيمة بدن ورك هواك أتسوى لكلناي ورك دنيا لكلناي يعرضي ده إلا شاب بقول عرضي وقيمة بدن مالك عندك أنت مركز شعب كي حقنا سلام بدن ما نكودنا هذا ويمن تدويه وحين رمى سويني ألقاك حريان وكانت تمد الصوماليات دمان شعبك الصوماليين السبب جوجا حقوق ذي سيد سعود عيال وهالكاسي جوحا كموجين أستاذ إسكت إيوانجليان حفيز كتاجيران حقوق ذا ومد الصوماليين يقول هذا هاي مقالة الله حكومة إلى سعود عيال بدياروين أيضا وحاول هم كإسلامي هاي قلبي قصد يسكتش يعني أنت أمريكا كمتبو إنسان شيء برنامج كان بالعرض جوحا هذا هاي عند فل ليس اسكو على ليس سلقوا نقنيس وايدين كاين كلا لميدا ونمان قبل هذا سومالي وغادية كل نور مركا حلك إذا صاروا بلارية هاي وعن رجينيا ونكتة معها إن حفيز كا حبناها جوحة قبل كفافا عاد ما نوفر أحسن يبقى حدينا ولا هو حنا مسنا بغلالكم ما كان لنا كم غيين إن المذودان إن البرنامج شوفين يالتان إن السنة دغالي إن هبيسان سيمينار رسمي أول الذي سيدنا بإذن الله الكريم هو جاك أبابك يا مدحض جوحية مسؤولين تكلا يا معي هنقطع محوها إن نفتورياشي ما هنقطع محوها إن ما ملكينا وعن رجينا إن هنقطع ندذفون وتذكر كم موضة
واستانتي جوحة لقوية غاني من تنمضة شرفته هي هيبة جوحة إناد مثجان وماشا لين كوار كبا أخلاق وناك نقا وناك من تنمضة وين كم غوي وحاويا من هذا كقيمة وسويا له ويا شاء وحاويا عيد والبا الباب كي جوحة استانتو لقب بلا واشنطن ودولة دنقو وحب بدنا إلى أستراليا إلى أديس أبابا إلى نيروبي إلى ساوث أفريقيا إلى نيوزيلاند إلى تسمانيا جوحة مقعدة وهيبة دي شرف بكلية وحانا كاني من لماذا حبناها جوحة أما ويلاشها الرامة عليها النقضان أما قبلها عليك وتاء خلقوا أيضا لججري عانا وقيني النقضان أما قبلها برف ونقاها كقبر بريئة بابايها النقضان أما ويلاش هالك كان تاني يقول لهم كان نقضان وعويان هي بدأ هي شرفت الجوحة دونك عام بيكتها يوحنا كيني وإذن كي يكون ذا لمذا وإن انتفاعات هي بدأ هي شرفتها ومن تدري الله تبعدان عاد إذن داريني هذا الكاميرا بشكل وحيوين هكاك ويو هالك إليه لكن وحنا ذي شيء وحاب اللوذي أنت هون مرتدي يسودويتي وين ما تعدى وقتك الشغلة يا باللوذي جوحة gobolladoo idin howlahooda inay bilowdaan kow barnaamijkii dhaqaalaha inaad xoojisaan waayo waxaan ku halgamayno waa muruqa shacabkayaga wey cid kale ummadda waa fariisanayno dalkayga dadkeeda intaan barinayno wax nasiisa wax ku qabsano ma baryayno cidna ilaahay moogiin waxaan magan u nahay shacabka soomaalida ogaadeeya halgankan ayagaa budhiga ayagaa waday wayna wadi doonaan marka waa inaad ku mintidaan dadkayaga xooggiisa iyo muruqiisa iyo maalkiisa saad u kasban lahaydeen dhammaan aqoon-yahan arday shaqaale hooyo muxuu ahaa ganacsataa gabar wax baranaysa ka guurguuranaya dhammaan shacabkayaga waxaa weeye waa inaad abaabushaan waxaad ku abaabulaysaanna waa kow midnimada ummadda soomaaliyeed iyo xaqeenna inaan difaacayno aanan ka tanaasulayn weligeen waxaa weye geesinimada aan yeelanayno buur bad dab meel walbaan u maraynaa xaqa ummadeenna kamana harayno geesimadana waan yeelanaynaa xubinka jooxow luqunta kor u taaga midnimadaadana muuji allahu akbar soomaalida israacdo ha midowdo jooxa ha guulaysato dhammaan waxaa kaloo aan u soo jeedinaya aan ku gabagabaynayaa dalkan annagaa iskale nabadgelyadiisa annaga waxay naga saaran yahay wixii khatar gelinaya mar walba inaad feejignaataan indhahana ku haysaan waxaa weeyaan cidda khusaysa iyo amnigeeda cidda ilaalinaysana gacanad ka siisaan idinkuna dishibliin fiican iyo asluub fiican ad yeelataan astaan fiicanna ummadda aad u noqotaan guulaysa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu هذا يوم weli barnaamijkeennii ayaynu bartanka kaga jiraa kadib markii uu soo gabagaboobay shirkaasi ayaa waxaa u suura gashay bahda Ilaysa TV ee magaalada Jigjiga in ay aragtidooda weydiiyaan ka qaybgalayaasha shirkaasi waxaan jeclahay haatan inaan idinku diiwo bal hadda dareenka iyo aragtida xubnaha iyo waliba howlwadeennada jooxo ee iyagu shirkaasi ka qaybgalay oo Ilaysa TV uu mikrofoonka la dhexmaray marka shirkan waxaan u arkaa shirkii ururka dhalinyarada inuu yahay ururka dhalinyarada haddii aad baan u soo dhawaynaynaa ururka haweenkana insha Allah uu ku xigi doona marka dhalinyarada waxaan aad idinku sheegayaa inaad ka nasiib badan tihiin kuwii jawxa ee hore waad ka nasiib badan tihiin hadda waxaan sheegi lahaa maanta wax baan dhalinyarada u sheegi lahaa midna ogaada iskama xubin ma noqonayo hadduusan qaaran beedkiisu bishii uun halka dhigay ma jirto wax xubinuhu ahaan hayaa ma jirto xubinku waa inuu qaaraan bileedka bisha halka iska dhigo xubinku waa inuu isjecel yahay xubinku waa inuu sharafti ummadda soo celiyo xubinku waa inuu qabiil ka hufnaado xubinku waa inuu kalsooni gaara kaliya leeyahay wuxuu kaliya dalka xore dalka waa inuu xubinku sidaa yiraahdo xubinku ma aha iska xubin ma aha maanta xagga u kac oo kuwa la soo sheekayso oo daba wax daran la soo sheekayso iyo waxaan faa'iido lahayn maanta haddana barna shirka ma jirto dhalinyarada waa inay dhisato hogaama adag oo sida 15 kafarood isugu geeya oo meel walba dayaha asaa isaga qabta sida uu sidii hal kariir saa isaga tuura oo kii qabiilka sheegaya saa isaga tuuro
قرن يا قبيل ولا بقى نسقبنينا اسك دايا قلد كو قدريه وليين بالي قرن يا قبيل ولا بقى نسقبنينا اسك دايا قلد كو قدريه وليين تيما جيرين لو ران جيرو شهيد با وحو يري يا وحو nin qabiil watiya nin qoomiyad raba qaran inay wadaagaan ma isqaban karaan waxa lagu qiyaasaa qaraf iyo badrool qol hadii la wada dhigo iyaga isqarxinayeen qaaradaha adduunyada kulli waxay qireen in qabyaaladaasi ma qayrkii ma raacay qoloqoliyo reer waaqashinimo ummadii qadarisa qoorsi kama baxdee qalbi saafi iyo quwad doomida qaran lagu dhisaa caran lagu qotomiyaa ninka lagu qaraabsado ama cadow qabaansado ha isqoomeeyo ha u qiilsamayna baalay war qabiilka naga daaya haddana waxaad ogaataan qabiilkii waa la soo afjaray gobolka qabiilka onkodo inuusan weligii dhaleeca iyo ceeb mooye wax kala qaadan wallaahi waan taariikhayna billahi waan taariikhayna waa gobolka hal qabiil lagu sheego soo gubanay oo soo rogmanay oo soo jajabnay eeg waxa weeyaan qabiilka naga daaya war qabiilka naga daaya ragii baa go'ay oo gabdhihii baa go'ay oo dalka wuu naaftay dalkani war qabiilka naga daaya war kii eeg haduu bukoodo ka haduu maanta midkiin bukoodo yu qabiil wuxuu taraa cidna soo ma aha qaran baa wax ku tari qabiil waxa kuma tari war naga daaya qabiilka ninka qabiilka wada qabto iska qabto oo saa iska qabto madaxda ku soo dhaweeya soo qoraal baa laga soo sameeyaa waxa ninka khilaafka badan qoraal ka soo sameeya labadaad kari waydaan qoraal ka soo sameeya mas'uuliyiinta u keena waxaan idin idin khayr baan idin rajaynaynaa ururka dhalinyaradu ahaa ururka dhalinyaradu uu mahadsan yahay laakiin ha noqonina dhalinyaro uu qarba oo la isu keenayo hadda un meelaha iska soo doondoonatay xisad yar wado wax karti laho naf laho waxaad noqotaan haddii la yiraahdo hagaagsan noqda waxaad noqotaan dhalinyaro jiilkan ah oo soo kacdayo kuwii shahiiday baaba'ay kuwii bedeli lahaa noqda waxaad noqotaan kuwii qadiyadu ku nasan lahayn noqdo odayaashan oo dhan waa isbedelayaan waa iska fadhiisan hayaan dalka hadaba yaa loo dhiibi hadda dhalinyaro firfircoon oo khatar noqon weydaan dalka yaa qabanaya yaa loo dhiibaya dadkii hore wax dhamaaday wax gaboobay wax jajabay buu noqday yaa loo dhiibi dalka marka war khilaafka iska daayo qabiilka qurunka naga dhaafa oo waxaan idin niri hadii ilaahay yiraahdo dhalinyaro fiil ah oo hadii la wax kala ah noqda horta magaciina ma karo anu magaciina ma karo dhalinyarada magaceeda aad ba uma karo laakiin waxaan idin sheegayaa inay sidaas u yarsocotiino inta iska shirtaan madaxdoona ogayn baydun oran haysaan dhalinyaradii saas ay hebel baanu nahay dhalinyarada waa la xukumaa ururada bulshada xukuma haye waxa weeye ururada bulshada ururka haweenka ururka odayaasha iyo cilmi diinka waxa weeyaan saddexdaaba waa la xukumaa urur gaar u haweenka u laxaad badan gaar isma taay karaan ma oran karaan ururka haweenka aanu nahay halkaas aanu shir ku qabsanay ururka haweenka ee jabhadda xoreynta ogaadeen ee faafaneed ee gobolkaas la yiraahdo laakiin haddaad kaligiis magacawdaan idinku ururkii hebel baanu nahay oo saas wax soconaya ma in badan baanu saa ka hadlay joojiya taas bisayl ma laha dad bisilsa ma ururkii dhalinyarada ee hebel oo shir ku qabsaday meel heble xoreynta ogaadeen ka weeyaan waalidin xukumaa mas'uuliyiinta idin xukunta annaga kulligaan baa layna xukumaa kolka ha iska dhigina wax gaar ah oo saasa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي ورحمة محمود أحمد شركة ماشي قبصامي أد بانو فرح سنة وحا شركة أوركا دالنيرا دا يون ألف وحا شركة نادي سودويني أنا نكو فرح سنين بشدة كالدوان قيبه هذا دالنيرا دا أيه هايان مركا وعقارات كي ياقونيا هنكا سفي عنا يعني سودويني وأنا نكو فرح سنة هاي وحنا هاشر لديشي ساي كم إذا هاي تسيدي لوحو جين لها من نماذا شعب كيولية وضطشيا ومطا صوماليات marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxa magacaygu waa Sacda Sheekh Cabdi Aamin waxaan ka mid ahay ururka dhalinyarada maamulka magaalada Jigjiga ee Jowxo maanta shirka si wanaagsan buu dhacay waa mideynta dhalinyarada iyo guubaabinta dhalinyarada isu taga mideynta inay dhalinyaradu ahaato mid waxaanu nahay anagu dhalinyaro mid ah dhalinyaro isku duuban dhalinyaro u halgamaysa gobonimada ogaadeenaya si aan u helno xaq iyo xuquuqda naga maqan anaga manihin anagu dhalinyaro macnaha ka boodsan xaq ay leeyihiin xaqeegiisaan u soo dhacsano ayaa waxaan isugu tagnay si ka dhalinyaro ahaan waanu isku duubanahay waxaanu isugu duubanahay macnaha si wada jir ah ayaan anagu
maxay ahayd u shaqeynaa maamulka magaalada Jigjiga dhalinyarteeduna aad bay iskugu wada duuban tahay shirkan maanta aanu galayna aad baan ugu faraxsanahay waxyaabo badan oo aanan markii hore waru haynin ayaanu maanta ka fahanay waayo anagu ururka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya maanan la shaqeyn jirin because waxaanu joognay deegaankan wax ka baranay deegaankan wax joognay oo ku dhaqnayn that's why baan waxba wax xogan amaanan ka haynin hadda xog dhab ah ayaana la siiyay wax dhab ahna waa naloo sheegay wax maldahanna looma sheegin wax runana loo sheegay taas ayaa nagu dhalisay inaanu noqono dhalinyar ku midowday macnaa dhalinyar ku midowday soo celinta xorriyadda wadankooda intaas ayaan kaga baxaya aad baan ugu faraxsanahay shirkan si wanaagsan waa naloo soo dhaweeyay si wanaagsan wax waa naloo fahansiiyay deegaankayaga waanu jecelnahay waa deegaanka ogaadeen iyo sidoo mid waxaan laabaanu ka tashanaynaa madaxdeeda ogaadeen iyo garabkoodan taaganahay waxaan leeyahay jooxo guul bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxa la daar sulub waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadda Jigjiga run ahaantii shucuurtaanadu maanta lama qiyaasi karo waxyaabo badan ayay hogaamiyaasha jooxa nagu baraarujiyeen anagu haddaan nahay jiilka soo korahayo waxaan diyaar u nahay insha Allah inaan bulshadeenada ka hagabtirno oo ka wacyi gelinno oo baraarujino oo u sheegno muhiimadda guud iyo ahdaafta aan leenahay dadku inta badan waxa iskaga dhaxqasan xilligan lagu jiro maadaama xaalad kala guur lagu jiro waxa iskaga dhaxqasan meesha loo socdo dadku inta badan mugdi hada uga jira sidaas darteed marka haddii aan nahay dhalinyarta jaamacadda Jigjiga iyo dhalinyarta bahda waxbarashada dhan annagoo midaysan ayaan waxaan suubinaynaa source iyo waxaan suubinaynaa daraasad xog baan raadinaynaa bulshadana qaabkan ku qancin lahayn baan falkeeda galina hadduu Ilaahay raado waxaan kaloo codsanaynaa jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya inay wacyi gelin ballaaran ku suubiso dadkii iyo bulshadii waxa ku kala dhex jiro ummad badan oo dadkii wax kale wax u sheegayso Soomaaliduna inta badan wax walba way iska odoorsan arintaas si looga hortago waxaan ka codsanaynaa jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya inay wacyi gelinta social media qayb weyn ka qaataan taasaan ka bixlaa wabillahi bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh aad baan marka hore idin wada salaamayaa dhammaan bulshada ogaadeenaya meel kasta ay joogaanba waxaan si gaar ah u salaamayaa shacabka ogaadeenaya shacabka geesiga shacabka runtii muddo badan u taagnaa inuu ka midho dhaliyo hadafkiisa iyo ujeedadiisa runtii oo dhibka badan u soo maray waxaa kaloo maanta runtii farxad weyn noo ah in maanta halkani ay joogaan xubnihii jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya ay ku shirahayaan magaalada Jigjiga howlka weyn ee loo yaqaano Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan runtii waa farxad aad iyo aad u qiimo badan halku waa Jigjiga xubnihii jabhadda waxaan oo dhan waa xubnihii jabhadda weeyaan oo isugu yimid inay maanta dareenkooda iyo aragtidooda cabiraan waxaa lan ka soo qayb galay mas'uuliyiin badan oo guddi furin ilaa golo dhexe ah waxaa kaloo goob joog ahaa xogayaha guud ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya runtii si aad iyo aad u wanaagsan ayuu shirkan u dhacay farxad bayna u tahay annaguna dad ka soo qayb galay baanu nahay guul iyo gobonimo ayay noo tahay gaar ahaan si gaar ah waxaan u salaamayaa bahda warfaafinta jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya bahda Ilays iyo dhammaan qorayaasha hoggaanka warfaafinta ayaan si gaar ah u salaamayaa waxa kaloo si gaar ah u salaamayaa wariyaasha maxaan ku dhahay hoggaanka warfaafinta ee ku sugan magaalada Jigjiga ayaan gaar u salaamayaa aad baan idin salaamayaa dhammaantiin assalaamu calaykum
akhyaarta hawada nagala socotay barnaamijkii caweysnimo ee Ilaysa TV heestaasi ayaa ugu dambeysay tan iyo inta barnaamijyada xigaan isugu imaanayna waa bahda Ilaysa TV oo iyadoo isku duwanada la fiyaamaanillah